ما شاء الله هرت طلواتي إلهي وحارجينا ويلكس إن شاء الله عاد أوغا نحوانك قيروضي كرك دنا إجري رعونا يساوغا نحي هبر وهورين إن شاء الله وحارجينا ما عرفتي وحاج عشودن iyo sida aad jecesho dhan ilaahay inuu ku yeelo khayrkan inuu ilaahay ku waafajiyo insha Allah waa run waa isbedeli kartaa niyadda ha iska dilin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لول وإذن لا أصحاب تجنلك يكوحي رسول وهذا إن شاء الله وحاربا سؤال اللي سوي دينا ماركتي كجوابات ولا يرادو سؤالها سنو حاليك سوكال ويدي انستغرام كي سناب جاب كالودو دبا دالين يرى يسوي دين وحان ربا إنان ماركتي كجوابو باك كاميرا سمعنا فإذا أيضا أياني ويدين دونتو وأنا أوجا جوابي دونا إن شاء الله ندو إلى يرادو سناب جاب قار لي وصو دري اللي يسوي ويدي إقار إنستغرام كاسمهان إيه كسو ويدين سؤال واي مرك إن شاء الله اسمها سعكو سعوا بلاوي ندو إلى يرادو. السلام عليكم أصحابته هاي وان السلام مرهورة يمكن دبيسة إن شاء الله وصونا قناة سيدي مكتين إن شاء الله. يا اسمها وأم الشيء waxaa musha xambaarta Allah ka dhigo markay horsan ka baxdo way soo laaban doontaa haduu Ilaahay yiraahdo marka insha Allah ku socoy insha Allah su'aasha ugu horeyso oo loo soo weydiiyay gabadh baa waxay ku tiri habriyeen fikradaada oo maxaa la dhahaa oo shukaansiga datingka maxaa way fikradaada maxaa ka qabtaa shukaansiga hooyo waa wax jiro waana aaminsanahay inuu shukaansiga wax jiro yahay وأنا شاكي سنكرا إن شاء الله كرا لهذا قبل يرستو اسمهانا أو إنيس هاي كسر تكلمته حواي استجود يا كويديسو وحي كتري ما موهنك صومالي ذا واي أدب أو قوان تقف كلا لص أنا واحد بدن سنة ده نقطة ولا سنة نقطة ما كبدناته because أي وحي عم سنت هاي قبدان قف سنة كير مكو برين كرتيد سويا هاي دبعدي سيئو وحسن سؤال في عن واي ماموينك waxay dhibaato ugu qabaan in ma aragto wax badan la wada socdo waxay tahay diiniyan hadii la fiiriyo hataa ma wanaagsano maadaama wiil iyo gabar aad tihiin way fiican tahay in la isbarto la sheekaysto waqti la isla qaato la isbarto laakiin ma wanaagsano in waqti dheer la qaato waxayna u wanaagsaneyn diiniyan kuma wanaagsano dhaqan ahaanna ma wanaagsano maamooyinkan waxay ka walwalaan inaad gabdhatiin dhibaatooyin ku dhacdiin ragana way iska qiyaamo badan yihiin marka saas awgeed maamooyinka waxay ka baqayaan inay gabdhaha dhibaatooyin ku dhacaan diiniyan hadii la fiirin wax idin wanaagsan ma okay su'aasha kaleeto gabadha ku soo weydiisay saddex qayb waytan qaybta ugu horeysa waxa waaye why sabab ee hooyooyinka iyo habriyaraha ay u rumaysan yihiin qalad inay tahay oo wiil lala noqonayo wala cousin ha noqdo ama asxaab taada ha noqdo why best friend ama saaxiib oo la noqoni karin wax ugu sheegan karin gabdhaha saaxiib waa laga dhigtaa waa la rumaystaa waa la believe kareeyaa hadhoodina gabadhaas wajixna kula imaan kartaa okay taasna waxa waa iyadana wiil saaxiib in lala noqdo diiniyan ma wanaagsano mana qurux badno gabar inay wiil saaxiib la noqoto hadaana anaga dad Soomaali ah ma wanaagsano ina wiil gabar ay saaxiib la noqoto wax qurux badanna ma ahan xalda walaalkaayo kale waa saaxiib waxa macnaha laba isfahamta saaxiib waxa aqaana sida isku qarsanaysiin wax walba noocaas ma aha nooc shukaansi ha marka walaalkaayo kale dadka walaalaha wiil iyo gabar walaalaha cala shacankooda walaalka hooyada aabaa u dhaleen dad saaxiib wiil iyo gabar walaalo kale wax isku qarsan kartiin walaalka waa la saaxiibi kartaa sirahaada u sheegan kartaa hadaatiin walaala isfahmaysiin wayna wanaagsanta walaalka ina saaxiib ka dhigatid oo asagana saaxiib ka dhigto laakiin ma wanaagsano diiniyan iyo dhaqan ahaan hadaa gabar tahay ina wiil saaxiib la noqotid ama wax sir ku qarsatid ama saaxiibtinimada aad la wadaagtid wax qurux badan ma ahan that's why u diidaan qaybta labaad su'aasha waxa waaye habriyaraha ama maamooyinka markay ku arkaan wiil sababtay been oo sheegan gabdhaha maxaa waaye maxaa ku kalifay inay dhahaan oo hebel arkay waxaas la sameeynaysaa waxaas orun ahayn laakiin wiil ay kugu dabaal keenay isla socotiin
soomaali haddaan nahay horta waa iska dhib badan soomaalida weyna inta ugu badanna waxyaalo been way sheegaan wiilii gabar hadday isla socdeen macnaha maaha inay wax qalad sameynayeen haddii waxna haddaad indhahaada ku arkin oo waxa indhahaada ku aragta aansa ahayn oo adiga laftirkaada maalinta qiyaamaa lagu soo istaajinaya ma wanaagsana inaad sheegtid wayna wanaagsan tahay maaragta carruurta hataa wax qalada dhalinyarada haddaa ku aragtid waxaa qurux badan intaa meelaha la wareegi lahayd maaragta inaa waanisid oo u sheegtid qaladaadka badanaana waxaa waay runteed waa gabadhaas hooyooyin ka dhaca waxaa ka mid ah carruurta markay arkaan iyaga wax qaldan sameynayaan iyaga ayaa wax u sheegi karo xataa waalidka si yaroo tartiibay ugu sheegi karaan laakiin waxay ka dhigaan ma aragtay taleefon inta la qabsado inaa heblo la waco heblaayo kale la waco cunugaas wax sameynaa la dhaho qaladaadkiisa la wareejiyo waa runtaas habarir waa idinku raacsanaa waana qaladaad ay badanaa hooyooyinka ay sameeyaan cunugii in la baafiyo qaladaad uu lahayn dusha laga sii saaro xumaatooyin badan oona lagu arkin maarata gabadhii ama wiilkii laga sheego waa waxyaalaha ay sameeyaan hooyooyinka soomaalida waana I don't know dhaqankooda ayaa saas ah marka ma wanaagsan in la sameeyo taas qaybta saddexaad su-aasha waxaa waaye waxay ku dhahaan habaryar adaa maamo ama habaryar ah oo fahmi kartid sababta oo habaryaraha markay gabadhooda ama cunugooda qalad ku jira ogyihiin cunug kale ugu mashquulaan wuxuu sameynayo soomaali haddaan nahayba waxaa waaye taasna waxaa uga jawaabayaa waa run horta mar walba hooyooyinka focuska u saarayn soomaali haddaan nahayna waxay noqdeen hooyooyinkii qaar ma aragtay wax barto oo waxbarasho ama maadi ama diin ha noqoto carruurtooda ku mashquulsan guryahooda ku mashquulsan shaqaysto iyo qaar waxay noqdeen laba gurub ay noqdeen kuwaas shaqaysto oo carruurtooda iyo maaragtay howlahooda ku mashquulsan kuwo kale oo kuwaas ku mashquulo oo maaragtay meeshay mareen hadday shaqaynayaan shaqadooda wax ka sheego hadday maaragtay wax baranayaan waxbarashadooda wax ka sheego hadday xitaa owlaad dhaldhalayaan owlaadee dhaldhalaan lagu dhib qabo oo dhal badan aldho wax laga sheego marka waxaas waa dhaqano ay leeyihiin soomaalida dumarkooda wayna fiican tahay dhaqanadaas in layska bedelo waxyaalaha qaladaadka ay ku arkaan carruurtooda inayna baafin ay baafiyaan gabdhaha kale ama wiilasha kale carruuraha kale anyway qaladaadka ay ku arkaan inay baafiyaan waa waxyaalo ay dhaqano ay u leeyihiin soomaalida siiba hooyooyinka su-aasha kaleeto waxaa waaye gabadhan maraa la talisay way kugu soo noqotay mar labaad waxay tiri habaryar arrintii su-aasha asxaabtaad ma u sheegaysaa okay gabadhan waxaa waaye habaryar hadda ka hore ay tala ii dhiibatay talada ii dhiibatayna waxay ahayd inay ma aragtay wiil walaalkeeda soomaali inay wada sheekaysteen muddo ay sheekaysanayeen arrintooda guur ay iskula bandhigeen ay ku heshiiyeen wiil shaqaystana uu yahay siday ii sheegtay shaqo fiicanna ka shaqeeyo waxayna ii sheegtay inay hooyadeed iyo reerkooda ay usoo bandhigtay hooyan ay diiday ay u tiri qabiilka uu kasoo jeedana ma soo galo qabiilkan hooyo aniga ka dhashay maan ku kale inaan ka guursadaysa iyo ogoleen ayaantiina waxaan kula taliyay gabadhan inay hooyo maaragtay hooyana la waaynin wiilkii ay jeceshahay inaysa waayin xal raadiso xalkana ay ka dhigto inay maaragtay wixii ay ku salaysa diin hooyana dhinac walba ay ka marto iyadii wiilka ay u wada tagaan ay ka dhaadhacsiiyaan diinta dhinaceeda ay maaragtay ay kula kaashadaan marka hadda marka maxay tiri way soo laabatay su-aasha hadda i weydiisay maxaa waxay tiri shuruud kasta wiilka lagu xukumay uu sameeyey uu kasoo baxay weli qabiilka lagu haystaa maxaa la dhahaa maamadana weli way diidan tahay inay isla socdaan isla sii sheekaystaan way rabtaa way doonaysaa because biiluu siiyaa hooyada lacag iyo wax kasta u baahatuu siiyaa laakiin guur arrinta markay meesha imaato haddana way diidan tahay because of qabiilka uu yahay laakiin inay isla socdaan dhib kuma qabto okay taas waxaa waaye midna hooyadaa leeyahay midna adaa ku leeyahay horta hooyo wiilka oo biil iyo wax walba siinaayo oo biilkiina saa ii sheegaysa ay maaragta ay isticmaaleyso oo haddana ay wiilka ku diidan tahay oo ku leedahay guursan oo haddana inaa isla sii socotiin ay ku ogolaanayso taas khatar badan ay keeni kartaa dhibaatooyin badan aad ku dhici kartaa asaga wiilkaas laftirkiisaaba laga yaaba inay dhibaatooyin badan kaasoo gaaraan inaa xanaaqdid oo meelo badan oo munaasab ahayn aa ku dhacdaa laga yaabaa hooyo waxaan ku wanaagsanaan lehed arrintaas inay iska dayso oo maaragtay wiilkana ay ku ogolaato aabbana saa ii sheegta wuu joogaa tiri arrintan haddaa aabba la kaashatay oo aabbana uu hooyo uu maaragtay isku fikradiin waxaan ku dhihi lahaa sida ugu dhaqsaha badan culummada magaalada aad joogto joogaan masaajidka tag arrinta la socodsii haddii oo maaragtay aabba uu arrinta hooyo uulsa la ogeyn aabbaba la socodsii arrinta aabbana kala tasho
mar walbana diintiisa iyo dhaqankiisa wiilkana ku sale iska fiiri qabiil qof bini aadan hadduu wiilka soomaaliya in lagu maaragtay lagu yaso ama maaragtay lagu riixo waa wax qaldan diinteenana raali kama ahan qaladaadyo badan oo kale waxay gabdhaha ugu dhacaan hataa ajanabiga ay u guursanayaan ee meelo qaldan uga dhacayaan guurka uga halaabayo maaragtay dadaan islaameen oo diinta nala wadaagin hataa ay u guursanayaan waa qaladaadka hooyooyinka ka dhacayo marka waxaan ku dhihi lahaa habar yar hadda ka horna waa kuu sheegay salaad istiqaarana tuko insha allah sida khayrka ku jirna ilaaha ku waafajiyo wiilkan aad jeceshahayna insha allah waxaa rajeynaya jaceylkaad inaad ku guulaysatid waa aaminsanaya jaceylku waa wax jiro insha allah waxaan rajeynaya inaa meesha kuugu horeyso masjidka inaad ka bilowdid aad u sheegtid arrintan hadduu ilaahay yiraahdo aaban hadduu ogyahan aabana kala tasho saasaan le insha allah waan usoo duceynaya gabadhaas insha allah su-aasha kale insha allah gabdhaha reer Seattle Washington degan oo arrimahaas oo kale oo guurkii waxaas qabsaday guys insha allah isoo message gareeya gabadha caawimaad u baahan tahay fikrada iyo wax u siisiin su-aasha ugu dambeysa waxaa waaye sorry guys wiilaa kusoo weydiiyey wuxuu dhahay hooyaday waxay dhimatay markaan 6 sano jiray aabahay naag kaluu guursaday naagta way soo abuse garin jirtay madaxa iga cuni jirtay aabahay markaan u sheegay inuu irumaysan jirin marka wuxuu dhahay way erisay guri waan ka tagay ana iskuriyuu dhahay wax badan ay albaabka iga xiratay marka arrimo xun gang iyo waxaasaa galuu dhahay inaan ka baxo rabaa aan isbedelo saan isku bedeli lahaa hooy ahaan talo maxaa isiineed gabaraa jirto aan wada sheekeysan oo wax kasta iga caawiso oo isku daydo nolosha inay iga bedesho laakiin ayada gabar waaye waxaastan ma fahmi karto nolosha adeegeedana sometimes ilama fahanto waxaan jeclaan lahaa inaan guursado laakiin financially stable ma ihi waxaan sameeyana ma aqaani nolosheedii sometimes waxaan umaleeyaa inay dhammaatay meel mugdi ku jiro laakiin alxamdulilah waan isqabtaa waan isceliyaa marka hooyo ahaan wuxuu dhahay inaa iwaanisaan rabaa wax badan iyo saanyaal aan kugu arkay aad jirto hooyada igu soo xasuusisid maasha allah marka waxaasoo kugu imaanaya aan kugu soo bandhigaya dhibaatada ay haysato so please advice isii advice cunugaada oo kala siin laheyd maasha allah horta talawaatii ilaahay waxaa rajeynaya wiilkaas insha allah aad uga naxawaano ka qiirooday korka dhanaan ijariiro coonaysa uga naxay habar ugu horeyn insha allah waxaa rajeynaya maaragtay waxaa jecesha oo dhan iyo sida aad jecesha oo dhan ilaahay inuu ku yeelo khayrkan inuu ilaahay ku waafajiyo insha allah waa run waa isbedeli kartaa niyadda ha iska dilin wax weyn maa inaa isbedeshid oo wax qaldan ah qof kasta oo qalad ku dhaco hadduu go-aan qaato wuu isbedeli karaa go-aanka aa qaadatana shaydaanka iyo wax kuu shishidin sidaa u qaad samee mar alaaliyo marka aa aragtid inuu shaydaanka wax kuu shidaayo aad isleedahay maaragtay wixii aa ka baxday aa ku noqonaysa because sababta aa u leedahay ma ka bixi kartid waxaa waaye waxyaalihii qaladkaas samaynaysay go-aanaa ka gaaraysaa markaa go-aan ka gaartid waxaa waa haddana waa ku laabanaysaa waxaa isleedahay marka maxaa go-aan ka gaaraysaa ma joojin kartid madaxaada galayso waxaa waa marka go-aanka markaa qaadatid waxaan haddana uu shaydaanka uu ku dhaho maaragtay uu kuu qurxiyo oo inaa ku noqon rabta aragtid shaydaanka iska naar soo weysayso 2 ragcadood tuko ilaahay bari masjidkana saaxiibada aad leedahay bedel isku day saaxiibo masaajidka joogo waxaana jeclaan lahaa inaa maaragta ila soo xiriirtid oo isoo wacdid please and please isoo wac ilana soo xiriir hadduu ilaahay yiraahdo waa jeclaha arrimahaas oo kale inaa ka caawiyo ciyaalka wayna wanaagsantahay in laga caawiyo insha allah waan isku rajeynaa waa rajeynaya booska hooyo ma buuxin karo qof buuxin karo booska hooyo malaha allah u naxariisto hooyana qabrigeeda allah u waasiciyo marka waxaan ku leeyahay booska hooyo inaa kuu galo waa isku dayaa waa dadaalina insha allah ilaahina waxna ma tusaayo sidaa aniga waxaan jeclaa wanaag iyo waa guursan kartaa waa shaqaysan kartaa ninka maaragtay ugu sareeya waa noqon kartaa go-aankeeda waa inaad la imaatid laakiin siboodna waa u baahan tahay in lagu sibood gareeyo qof kasta oo isbedelaya wuxuu u baahan sibood yaa kuu noqon karo waxaa waa qof weyn oo sibood inaa heshid way fiican tahay saaxiibadaadoo dhan oo bedeshidna waa ku bedelmi kartaa waa inaad saaxiibadaada bedeshid wax saaxiib haddaa lahayna waa inaad saaxiib xagga diinta waa inaad baratid dantaadana aa u sheegtid danta ceeb ma aho inaa qaladaadkaas oo dhan rabtid inaad ka baxdid
adna ilaahay waxaan kaaga barya inuu kugu soo toosiyo qof daacad ah oo maaragtay jidka toosan kugu hago kuna garab qabto wax dhibaatana ilaahay kuma tuso intii aa xumaan aa soo gashay intaa yareed waa yareed inta weyn hadda adoo weyn aa gashayna ilaahay kaa saamaxo kana toobadkeen iskana daa qaladaadka kuma fiicno waxaa waa ikan waa isbedeli kartaa aad iyo aadayna kugu fiican tahay inaa arrimahaas oo kaleeto aa heshid dad diinta ku xiran oo ahlu diin ah raadi dhalinyarada yarka oo masaajidka joogaan way ku fahmi karaan masaajidka kugu dhow tag imaamka masjidka u tag arrintaada u sheeg wax walba u sheeg insha allah ana waxaa rajeynaa hadduu ilaah yira inaa isoo wacdid ilana soo xiriirtid aa isbaranno aan kaa warhaay hadduu ilaah yiraahdo xaaladahaadoo dhan aan ogaado insha allah wuu aada ii dhibaysaa haddii waxaa ii fiicnaan laheyd aan aada u jeclaan lahaa meeshaa joogtid ma garanahay magaalada aan joogo aan ku noolahay haddaa ku nooshahay aad okay waxaa jeclaan lahaa habar inaa ila soo xiriirtid insha allah aaday igu fiican tahay inaa magaalada aad joogtid wax badanaan kaa caawinaya waana shaqo aan u baahana inaan qabto anigana maaragta ajari xasanaad aan ku raadsanayo ma aha maaragta faan iyo istustus insha allah waxaan rajeynayaa aad ayaan kugu farxadda marka ay tiri waa mahadsantahay ismaan toronto joogaa waa aadaan kugu faraxsana waa ila soo xiriiri kartaa waa inaan is aragno waan kulmaynaa insha allah waxaan jeclaha arrintaas aa ka dhawaajisay inaad ku guulaysatid meel sarena aad gaartid insha allah ilaahay nuu nala garab galaya waxaa noqon doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo next time aan rajeynaya adoo maasha allah oo meeshii aan rabnay oo aan kuugu faraxsannahay inaad gaartid niyaddan ha iska dilin anaa ku iri waa isbedeli kartaa wax walbana waa qabsan kartaa adoo shaqeeyo shantaada waqti tukado maaragta wiil maasha allah noqdana insha allah waa arki doonaa hadduu ilaahay yiraahdo marka insha allah habreer waxaan jeclaan lahaa inaa ila soo xiriirta aan is aragna ani adiga hadduu ilaahay yiraahdo taasaa marka uga baxaya hadduu ilaahay yiraahdo su-aal kale maxaa dhiman ismaan intaas waa marka insha allah asxaabta janalka ku xiran waxaan idin leeyahay su-aali intaasay ku ekaayeen wixii talooyin ah caruurteena oo kale ah eedadii habaryarta aan u wadanahay aad siinaysiin gabdho yararoo maasha allah way jiraan wiilal maasha allah way jiraan caruurtan walaalayin haddaad siinaysiin maaragtay fikrado ama wax aidiyooyin aad siinaysiin qaybta commentiga ugu soo qora insha allah hadduu ilaah yiraahdo wixii su-aal ii qabo dhalinyaradu ay soo weydiin kartiin hooyooyin haddaan nahayn way wanaagsan tahay caruurta wax badan inaan maaragtay ka bedelno inaan wax badan maaragtay ka caawino marka insha allah waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa walaashin ayaan luul oo idin leh asxaabta janalka ku xiran soo dhawaada janalka dadka ku cusub waxaan idin leeyahay waa idin soo dhaweynaya gacmo furan iyo qalbi furan idinku soo dhaweynayaa insha allah barnaamijkana sii sheer garay hadduu ilaah yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu